waanid salaami saaxiibayaal ku soo dhawaada Somali Recap maanta waxaan sharxi doonaa filim aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Con Skull Island haddaba waa kan filimkiiye daawo oo taxadarna sanadkii 1944 meel ka sareysa markaa koonfurta Pacific waxa ka soo degay nin lagu magacaabo Marlow isagoo markaa wata parachute kadib markay galeen shil diyaaradeed cabaar kadib askari lagu magacaabo Ikari ayaa isna soo degaya Marlow ayaa qorigiisa u taagay Ikari wuuna toogtay balse markuu toogtay wuu la seegay waxaana ka dhamaatay markaa rasaastii Ikari ayaa isla markaa soo saaray isna qorigiisa oo daba galay waxaana u yaaceen markaa dhanka kaynta iyagoo markaa dagaalamaya marka ay dagaalamayaan Ikari wuxuu ku sigtay markaas inuu Marlow ka taago seeftiisa balse Marlow ayaa iska qabtay Ikari ayaa markan dhulka ku haya Marlow oo ku dhawaaday markaas inuu dilo isla markiiba waxa si lama filaana markaa u soo baxay gacan daanyeer oo weyn labadii nin ayaa markaas arkay daanyeerka oo korkooda ka kacay dhacdadaas kadib sanadkii 1973 magaalada Washington waxa yimid sarkaal dawladeed kaasoo lagu magacaabo Randa waxaana la socday nin kale lagu magacaabo Brooks iyagoo markaa u yimid si ay ula kulmaan markaa Willis iyagoo ka doonaya markaa maalgelin goob dhawaan la ogaaday oo lagu magacaabo Skull Island Willis aad uma jecla markaa fikradooda laakiin Randa wuxuu markaa ku haminayaa inuu ka tanaasulo koor intaysan bixin Randa wuxuu u sheegay Willis inay u baahan yihiin markaa ciidan kadib kooxda Sky Devils ayaa la soo ururiyay maalinka u dambeysay koor intaysan guryahooda aadin waxa hogaaminaya markaa Backhad iyadoo ay la socdaan Cole, Mills iyo Chapman oo ah markaa gacanta midig ee Backhad wuxuu helay markaa wicitaan kaasoo loogu sheegay markaa socdaalka si farxad leh ayuu markaa u aqbalay shaqadan Randa iyo Brooks waxay aadeen markaa baar waxayna heleen markaa kabtankii hore ee adeega hawada kaasoo lagu magacaabo Conrad wuxuuna la fadhiyaa Randa iyo Brooks si uu u maqlo markaa qorshahooda markuu maqlo warbixintooda wuxuu dalbanayaa markaa lacag badan wuxuuna tilmaamay inay jirto fursad wanaagsan oo markaa uu ku safri karo iyadoo meeshaas caqabadeedu iska badan tahay sababo markaa la xiriira cimilada daran ee jirta iyo xayawaanada markaa ugaarsatada ah gudaha qol mugdi ah Weaver ayaa waxay soo saaraysaa markaa sawiro ay qaaday waxayna helaysaa markaa wicitaan si ay ugu biirto markaa kooxda socdaalka waxayna timid goobta saldhigga si ay ula kulanto Backhad iyo saaxiibadiis Weaver waxay haystaa markaa boos celin ku saabsan markaa howlgalkeeda waxayna u malaynaysaa in militarigu qorsheynayaan wax xun inta kadib kooxdu waxay u baxday dhinaca badda ka hor intaysan safarkooda gelin waxayna gudagalayaan safarkooda kaasoo ah markaa mid dhibaato badan dhan kale duufaan ayaa markaa cirka iyaduna isku shareertay diyaarado yarar ayaa markaa duulaya deegaanka dhan kale Weaver ayaa sawir ka qaadanaysa iyaduna isla markiiba geed ayaa lagu soo tuuray mid kamid ah markaa diyaaradaha oo dhulka markaa ku dhacday kooxduna markaas waxay arkaysaa Con oo korkooda taagan wuxuuna tuurayaa mid kamid ah diyaaradaha oo agtiisa maraysay ka hor intaysan dhowr kala qabsan oo dhulka markaa ku jebin xubnihii kooxda badbaaday waa la kala saaray Backhad wuxuu ka hor yimid Randa oo qori markaa caaridiisa uu ku fiiqay wuxuuna ka dalbanayaa in la ogaado waxa markaa meeshan uu keenay Randana markaa wuxuu qirtay inuu wax ka ogaa markaa jiritaanka daanyeerkan weyn Conrad, Weaver, Brooks, Lynn, Slivko iyo Nieves ayaa markaa la isku daray dhan kale Backhad, Mills, Cole iyo askar kale waxay u dhaqaaqeen markaa inay raadiyaan Chapman maadaama uu ku qalbaysan yahay rasaas ku filan markay askartu dhex marayaan kaynta si lama filaana askari ayaa markaa istaagay waxaana ku soo dhacay markaa geed weyn oo markaa afka ka galay korkooda waxa ku taala markaa caaro weyn oo weerar ku soo qaaday Mills ayay markaa caaradii kor u qaaday askarta inteedii kalena waxay bilaabeen inay lugaha ka jaraan bahalka Mills ayaa jarmaya wuxuuna ku soo dhacayaa markaa dhulka Backhad wuxuu tooganayaa caarada ilaa uu dilo dhan kale Chapman kaligiis wuxuu joogaa meel webi ah wuxuuna arkayaa Kongi oo dhex taagan markaa webiga isagoo markaa dareemaya dhaawacyo markaa ka soo gaadhay rasaas markaa lagu furay Kongi wuxuu cabayaa markaa biyaha webiga wuxuuna helayaa octopus weyn ka hor intaysan cunin wuxuu markaa ku mashquulayaa inuu la dagaalamo ugu dambeyntii wuxuu jiidanayaa markaa bakhtigeeda kooxda Conrad waxay markaa weerareen qabiil markaa meesha u dhashay iyagoo isku dayay inay istifaacaan waxaana soo baxay Marlowgii aan bilowgii filimka ku soo aragnay oo weynaaday wuxuuna u sheegayaa inaysan wax waxyeello ay isu geysan labada kooxood isagoo marti qaaday kooxdii Marlow ayaa kooxda markaa u sharaxaya inuu 28 sano markaa halkan deganaa una wax badan ka bartay dadka markaa meeshan u dhashay Kong waxay aaminsan yihiin inuu yahay markaa ilaahooda maadaama uu ka ilaaliyo markaa makhluuqa dhulka hoostiisa ku jira makhluuqaasoo lagu magacaabo Crawler Chapman wuxuu dhex marayaa markaa kaynta isagoo markaa ku fadhiistay geed ugu dambeyntii geedkii wuxuu ku noqday markaa cayayaan weyn dabadeed wuxuu samaynayaa markaa inuu toogto makhluuqiina kama aarsan isaga wuuna iska tegay ugu dambeyntii Jam waxaa dilay Crawler
Weaver waxay aragtay markaa lo aad u weyn taasoo markaa ku hoos jirta diyaaradii markaa shilka galay waxaana isku dayaysaa markaa inay ka qaado isla markiiba si lama filaana waxa soo baxaya markaa Kong oo kor uga qaaday markaa diyaaradii saarnayd lo'da waxaana si lama filaana u eegaysaa makhluuqan iyadoo markaa yaaban Conrad wuxuu Marlow u sheegay inay qorsheynayaan inay gaadhaan meeshii ay u socdeen taasoo u jirta markaa 3 maalmood Marlow wuxuu u sheegay inay 3 maalmood aysan ku tagi karin lug sida darteed uu aqbalay inuu markaa raaco Marlow wuxuu sii sagootiyay markaa dadkii meesha u dhashay wuxuuna kooxdii ku qaaday markaa doon wax yar kadib markii la fuushan yahay Navis waxa dafay markaa shimbiro cunfi ah waxaana lagu kala jeexjeexay markaa hawada dhexe Marlow wuxuu kooxda ku hogaaminayaa aaga Forbidden oo ah markaa goob ay ku dagaalami jireen Kongi iyo Krolisku waxaana garoonka ka muuqda hadhaadiga markaa Kongiga isla markiiba waxa soo muuqday Coroller kooxduna waxay ku qasbayeen markaas inay isqariyaan Corollerkii wuxuu soo tufay markaa madaxa German iyo sidoo kale sumadiisii uu qoorta ku watay taasoo Conrad uu ogaaday dhan kale Randa sawirro ayuu qaadayaa bal yaa u dirsaday kadib waxa cunaya markaa Corollerkii bahal kale ayaa soo baxay oo bilaabay markaas inuu weeraro kooxdu markaa waxay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan Corollerka Marlow ayaa markaa la soo baxay safety uu lahaa markaa Ikari oo ku dhuftay dhowr shimbirood dagaalka kadib ay dib u soo abaabuleen Packard wali wuxuu u hawleeyay markaas inuu raadiyo German Conrad ayaa markaa tusay sumadii markaa qoortiisa uu ku watay si loo xaqiijiyo markaa dhimashadiisa Packard wali markaa ma uusan rumaysan wuxuuna rabaa inuu raadiyo kaydkiisii rasaasta habeenkaas Packard wuxuu ururinayaa markaa walxaha qarxa isagoo raba markaas inuu dabin u dhigo Kong dhan kale Conrad iyo Weaver waxay la kulmeen markaa bahalkii laakiin Weaver waxay markaa si taxadar leh ugu soo dhawaatay bahalkii oo ay wajigiisa gacanta ka saartay si kastaba ha ahaatee Packard wuxuu ku soo tuuray markaa dab isagoo biyaha markaa ugu daray shidaal waxaana gubanaysa markaa dhawarta Kongina wuxuu ku tumanayaa markaa biyaha isagoo markaa dilay nin markaa iyaga ka mid ah Packard ayaa mar kale isku dayay inuu rakibo waxyaabaha qarxa laakiin Conrad iyo Weaver ayaa isku dayay markaas inay joojiyaan waxayna ku qancinayaan inay askartu u baahan yihiin Kong calaashan daanyeerkan weyn inay askartu u baahan yihiin si uu uga ilaaliyo Corollerka askartu waxay ku qancinayaan Packard oo weli diidan isla markaa Coroller aad u weyn ayaa markaa soo baxay waxayna kooxdu ku qasban yihiin markaas inay ordaan Packardna gadaal ayuu joogaa si uu u rakibo markaa walxaha qarxa laakiin Kon ayaa markaa gacantiisa ku burburinaya badbaadayaashu waxay aadayaan markaa dhinaca xeebta iyadoo markaa Corollerkii uu daba socdo Cole wuxuu markaa u huray naftiisa isagoo isku rakibay markaa walxa qarxa si kastaba ahaatee bahalkii ayaa markaa dabadiisa dambe ku dhuftay isagoo ku dhacay markaa meel buur ah dabadeed markaa uu halkaa ku qarxay Corollerkii wuxuu markaa daba socdaa kooxdii ilaa uu markaa si lama filaana ugu soo noqday Kong oo isku jabiyay markaa bahalkii Weaver ayaa markaa soo qaadatay qori ololaya oo ay wajiga kaga dhufatay markaa Corollerkii Kon ayaa awoodiisa oo dhan u isticmaalaya markaa Corollerkii oo ku tuuray markaa gidaar si aysan ka filanaynin ayuu markaa u garaacay Weaver ayaa webiga ku dhacaysa maadaama meel buura ay taagnayd dhan kale Kong wuxuu isticmaalayaa markaa makiinada markabka taasoo ay ku xidhan tahay markaa silsilad weyn si uu u dhaawaco markaa bahalka ugu dambeyntiina uu cunaha ku dhuftay bahalkii ma dhiman weli haddana weerar ayuu soo qaaday Kongina wuxuu soo saaray markaa Weaver oo markaa biyaha dhexdeeda ku jirtay markan waa kama dambaystii gacantiisa ayuu markaa afkii Corollerka geliyay wuxuuna samaynayaa inuu caloosha kala soo baxo dhamaadka filimkana Kong wuxuu dhigayaa markaa Weaver wax yar kadib badbaadayaashu waxay u ambabaxayaan markaa dhinaca doonta meel ka fog Kong wuxuu ilaalinayaa markaa si uu u sii wado ilaalinta dhulkiisa Ferd ayuuna markaa isla dhacayaa wuxuuna bilaabay markaas inuu qayliyo filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday haddii markaa aad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan la garee si markaa dad badan uu gaaro waana kaaga mahadcelinayaa daawashadada muuqaalkan inta muuqaalka xiga ku kulmayna waxaad kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh